qaar ka mid ah wariyaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa kuna soo dhaweyn u sameeyay Saadaq Mandira oo hore ugu soo shaqeeyay ciyaaraha FM iyo Gool FM. kulanka soo dhaweynta waxaa kala hogaaminayay Najiib Aadan Najiib iyo Maxamed Cabduqaadir Jamuuni. ciyaartan ayaa ku soo ilaatay waqtigii loogu talagalay 6-2 ee guusha ku raacda kooxda uu hogaaminayay Jamuuni. markuu soo idlaada kulanka qaar ka mid ah wariyaashii kulankan ciyaarayay ayaa goobta ka hadlay. kulankan maanta wuxuu ahaa kulan soo dhaweyn aan u sameynay wariyaha caanka ah ee Saadaq Mandira oo markaasi hore ugu soo shaqeeyay ciyaaraha FM iyo sidoo kale Gool FM iyo sidoo kale TV-ga Sam News oo dabcan maanta aan u sameynay kulankan soo dhaweynta oo ay ka soo qayb galeen saxafiyiin caan ah oo markaa ay joogeen sidoo kale kuwa kale maanta markaa ka codbo daarteen oo halkan ay ka soo gaar waayeen maadaama kulanka hoos uu ka soo galay oo saaxiibkeena markaasi dhawaan uu yimaaday. Saadaq waxa leenahay soo dhawo ciyaar qurux badan ayaa galabta halkan lagu soo bandhigay oo anaga markaasi oo ku kala ciyaarina soo dhaweynta Saadaq halkan ku soo dhaweyn aan leenahay ku soo dhawo mar kale Muqdisho isagoo markaasi qurbaha markan ka imaaday. dabcan gari laba nin kama wada qarsoosiiso ugu dambeyntiina ciyaarta waan nagala badiyay anagoo laba team ku kala ciyaarinay teamkeena markaa 6-2 ay ciyaarta ku soo ilaatay walow aniga maanta dadaal dheerna aan sameeyay. aan soo dhaweynay saaxiibkeena Saadaq Mandira oo muddo ka maqnaa dalka waxaan leenahay soo dhawow waxaan u sameynay kulan soo dhaweynaa aniga iyo asxaabta wariyaasha ka shaqeeya sportska. Saadaq waa saaxiib nagu weyn waxaan maanta halkan lagu ciyaar qurux badan inkastoo aan Saadaq aan la jiray aan badinay Najiib oo kabtanka kooxda kale ahaana laga adkaaday marka ciyaartu waxay ku dhamaatay 6 gool iyo 2 gool waxaan leenahay walaalkeen Saadaq soo dhawow mar kale gacmo furan ku soo dhawow saaxiib. aan aad iyo aad halkan ugu mahad celinayaa asxaabteeda qaaliga ah oo maanta soo dhaweyntan kulankan balaaran ii sameeyeen labada bah oo ciyaaraha iyo Gool FM labada dhinac baan ka soo shaqeeyay. waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa ragga maanta ka soo qayb galay ciyaartan oo soo dhaweynteeda ahayd aad iyo aad walaal aad baan ugu faraxsanahay. waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxa waa wadanka waa aad bay horumar u gaartay kubadda cagta. dhalinyaradu waxa waa qayb ka mid ah sportiga jiilka sportiga waa marka waxaan dhihi lahaa asxaabteeda aad bay aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina raaliyan iga ahay waan idinka qabaa. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa isugu imaanay kulan muhiima saaxiibkeena walaalna uu qaali ah oo shaqo wadaageen Saadaq Mandira waxaan leenahay ku soo dhawow dalka 3 sano kadib ayuu dib ugu soo laabtay kulan qiimo badan oo dad badan isugu imaadeen oo banooni la ciyaaray oo qof walba xirfadiisa ku soo bandhigay ayaan meesha isku ballansanay asxaabtii hore idaacadaha sportiga Gool FM iyo islamida ciyaaraha FM ayaa meesha ku kulmay waana idaacadihii u soo shaqeeyay Saadaq Mandira iyo saaxiibo kale oo saaxiibadiisa meesha imaaday waana ku faraxsanahay kulanka maanta inkastoo aan dhaawac kulankan uga baxay oo aan jeclaan lahaa inaa wacdarto oo Najiib Aadan Najiib iyo dad badan oo meesha aan waxba haynin ay isugu imaadeen haddana ciyaar xiiso leh meesha ka dhacday oo aad iyo aad dad badan soo daawasho tageen marka Saadaq Mandira waxaan leenahay mar kale soo dhawow.